run ahaantii waa nasiib daro cudurkaanoo 1 sano iyo 2 bilood jiray inuu hadda dib Soomaaliya oo ka sii bilowdo oo waliba dardar cusub iyo dhimasho cusub oo ku bilaabo taa waxa keenaya marka cudurkan waxa keena coronavirus wax la yiraahdo waa virus wuxuuna ku fidaa laba qof dhexdood qof qaba iyo qof aan qabin qofka qaba ayuu ku jira cudurkan dibadda ma joogo hawadana lama socdo wuxuu ku jira qofkaas fidinaya cudurkan dadka markuu ku dhaco waxay isku arkayaan qandho qufac neefta ku dhigta madax xanuun kor jajab dadka qaarkood waxay sheeganayaan inuu urka iyo dhadhankii ka tagay qaar waxay sheegayaan shuban iyo matag marka taas waxaa ka daran oo dhibaatada xoog leh waliba wada waxa weeye dad aad iyo aad u fara badan oo cudurkan uu ku dhacay ayaan haba yaraatee wax calaamada lahayn oo calaamadahaas aan soo sheegnay haba yaraatee aan waxba lahayn aan ogeyn xataa iyaga inay laftigooda qabaan cudurkii laakiin isla markaa haddana cudurkii faafinaya maalintii shalay waxaan daawanayay suuqa laga soo duubay ee xamar video aad iyo aad uga naxay sababtoo ah waxaad moodaa Soomaalida inay haba yaraatee wax dareen oo cudurkan ku saabsan ay qabin maaska ma xirna kala dheeraashadii ma jirto waa la isdhex marayaa garbaha la isku degayaa waa la ishuminayaa waa la salaamayaa cudurka cudur faafo waaye cudurada faafana waxay ku fidaan isu imaatinka marka la leeyahay cudurkan 2 mitir iyo ka badan isu jirsada micnaheeda waxa weeye cudurkan wuxuu ku jiraa qofkan qaba wuxuuna ka soo baxayaa sankiisa afkiisa markuu qayliyo hadlo ama qufaco waxa afkiisa ka soo baxa 2 mitir ba soo gaarayaan hadaad u jirsato 2 mitir iyo ka badan kuma soo gaarayaan dhulkii ku dhacayaan intii adigu soo gaarin micnaha 2 mitir iyo ka badan isu jirsada taas weeye waxa loo baahan yahay gacmaha in la iska dhaqo iska dhaqida gacmaha ma aha faraxalka naqaanay waa saabuun iyo biyo in lagu dhaqo gacmaha oo yaraan 20 ilbirqsi taas micnaheeda waxa waaye gacmuhu waa meesha bini aadanka jirka ugu wasaq badan waaye labadeena gacmood meesha jirka bini aadanka ugu wasaq badan waaye laana meel kasta lagu taabanaya wax kasta aad ku taabanaysaa marka waxa loo baahan yahay mar kasto oo aad dibadda u baxdo ama aad wax taabato inaad gacmaha iska dhaqdo saabuun iyo biyo iska dhaqdo ma aha faraxalka naqaanay waa iska dhaqid gacmaha laga saabuun iyo biyo lagu dhaqayo waay waxa kale la rabaa maaskada in la xirto maaskada waliba wax taraysa waxa waaye midda 2 fidqa ama 3 fidqa ka kooban laakiin maaskada marka la xiranayo waa inay sanka iyo afka daboosho oo si fiican intaas u daboosho weeye Soomaalida waxaad arkaysaa maaska u xiran afka daboolan sanka waa furan yahay ama garka hoostiisa ku wataanba waxa inta ka badan inta aan xirneenba oo isdhex yaacaya taasa marka waxay keentay in cudurkii dib hadda ugu soo laba kacleeyo Soomaaliya oo dad fara badan ay u dhimanayaan Soomaalida waxaan ka codsanaynaa siiba wasaaradda caafimaadka in ayaamihii cudurkan uu bilowday controlka ay bilaabeen iyo taxadirkii bilaabeen inay dib u soo celiyaan oo ah hadda waxa igu maqaalo ah cudurrada hadda Soomaaliya ka socda inay ka yimaadeen in laga helay dad ka yimid South Africa iyo Ingiriiska waxay geeyeen meeshaas waa nooc cusba oo ahaa maartay coronavirus isu bedelay ah marka in controlka airportka la soo celiyo karantiilkii la soo celiyo qof kastoo dibadda ka yimaada in maartay karantiil 14 maalmood la geliyo meel lagu xareeyo waliba qarashka iska bixiyaan sababtoo ah qofka Soomaaliga oo dibadda ka tagaya ma aha inuu cudur dibadda ka qaado oo dadka Soomaaliyeed u geeyo masaakiinta waa qalad waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed inay dawladooda iyo wasaaradda caafimaadka amarada ka soo baxaya taqaatiirta Soomaaliyeed wacyigelinta ay ku soo binayaan inay qaataan cudurkan 4 shay hadaa suubiso waa ka badbaadaysaa inaad gurigaada joogto inaad labada gacmood iska dhaqdo
inaad maaska xirato iyo inaad qofka kale u jirsato 2 mitir iyo ka badan. afartaas shay haddaad suubisid cudurkan waa ka badbaadaysaa. haddaa adigu badbaadidna ummadda kale waad ka badbaadinaysaa. taladoo dhan waxay iskugu soo aruuraysaa nafsadaada adigu badbaadi si aad dadka kalena u badbaadisid.